uga tegi mayno caruurteena dhaxal xun baynu uga tegaynaa. waxaa kaloo intaa dheer saldhigu wuxuu yeelan doonaa saamayn colaad inoo keenaysa. waxaynu ka warqabnaa dalka Yemen iyo Soomaaliland waxay isu jiraan 90 kilomitir ama 90 mayl. dayuuradaha waxaynu ka warhaynaa dalka la siinayo saldhiga inuu dagaal kula jiro dalka Yemen. waxaynu ka cabanaynay Soomaaliland berigii Siyaad Barre in dayuurada meel lagu garaacayo. marka dayuuradaha ka kaca Berbera ee soo duqeeyay Yemen waxaan xaqiiqa inuu jawaab colaadeed ka heli doono taasoo aan nabadgelyada Soomaaliland ku faanayso iyo dalkeenaba khatar gelin karta. marka waxaan leenahay war haddii Djibouti ay diblomaasiyad la isku hayo anagu Soomaaliland darbaana dawladeedii weeyaan inay saano xasuuqdana waa laga xiyay. ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxaan joognaa geeri naxdin leh oo shalay toole lagu xasuuqay deegaanka Indhabraale oo ciidanka militariga Soomaaliland ay xasuuqeen iyagoo iska quraacanaya oo iska fadhiya oo war u haynin dhashiikayaal iyo suug la dhacay baan halkan geeridoodii ku aasnay dhaawic oo dhaxda ay kaga baxday naftu. marka waxaan leenahay war haddii Djibouti ay diblomaasiyad la isku hayo anagu Soomaaliland darbaana dawladeedii weeyaan inay saano xasuuqdana waa laga xiyay. marka waxaan leenahay war nimankaas deegaanka u dhashay hadday dhulkooga difaacayeen in kale oo waxa jirta maati oo Indhabraale aan indhahayga ku soo arkay ciyaal yar oo naqan maxay tahay waxaas dawladba anagu Soomaaliland darbaanahay calanka Soomaaliland baan haysanay xasuuqaasna waxaan u geysatay calankii iyo Soomaaliland tina ay tinay. marka dawladeedaasi xasuuqa waliba ay ku tilmaantay dad budcada dad shifta ah dad meel kale ka soo duulay. marka waxa weeye dadkaas loo ooyi maayo maanta waa la aasay xabaashoodii baan joognaa waa loo aari. anagu dadkaan islayna labada nin ka dil anaga inoo taala haddii aan ka garbaxayno iyo hadday laga dilayaan anaga inoo taala. laakiin jabhad boqolaal jabhadood baa jirta Soomaaliland haddii ay dhax u tahay ummadda hanoo sheegtay anaga haddii kale iska baxaynaaye aad baan waxa weeyaan uga taxsadeenay eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka dhasheen aad baan u tashanay way naga wada dhinteen loo ooyi maayo dhulkoogii bay u dhinteen difaacoogii bay u dhinteen wayna u dhiman doonaa waana u dhiman doonaa.